waxaanu samaynay waxa jiray eedo aan u jeedinay maayarka oo ay ka mid ahaayeen musuqmaasuq sharci jabin iyo awood maroorsi kuwaas iyagu waa sidoodii way socdaan hay'adaha ku shaqada lana way marayaan afhayeenka aqlabiyadda xildhibaanada golaha deegaanka magaalada Gabiley Axmed Ciisood Axmed ayaa markii ugu horeysay ka hadlay qaraar ay ka gaadhay maxkamaddu dacwad ay u gudbiyeen golaha deegaanka magaaladaasi Gabiley qaraarkan oo ay sheegtay maxkamaddu inay laashay dacwadan oo ku saabsanayd warqad ay u soo gudbisay wasaaradda arrimaha guduhu isla markaasina ay laashay maxkamaddu ayaa waxa uu sheegay inay u aqbaleen sidii markii horeba ay u aqbalsanaayeen balse taasi aanay ahayn inay dhammaatay eedihii ay u soo jeediyeen maayarka magaalada Gabiley isla markaasina ay ka dhur sugayaan eedihii musuqmaasuqay ay u soo jeediyeen oo iyaga ay gacanta ku hayaan guddida dabagalka hantida qaranka ee golaha baarlamaanka Soomaaliland maxkamadda sare waxaan u gudbinay markii hore waxay ahayd rafcaan aanu ka qaadanay go'aankii ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha ee lagu joojinayay kalfadhiyada aan caadiga ahayn go'aankaasoo aan u qabanay 4 qareen inaanu rafcaan kaga qaadano oo anagoo warkaynay go'aanka wasaaradda ka soo baxay inuu ahaa go'aan sharci darra qaraarka maxkamadda ka soo baxay bulshada ka horteed baan u sii sheegnay inaan qaadan doono go'aan kastoo ka soo baxaa maxkamadda sare marka waxaan doonayaa bulshada inaan u sheego arrinta aanu maxkamadda sare u gudbinay inay ahayd wareegtada wasiirka ee kalfadhiyada lagu joojinayay goluhu khilaafaa ka jiray oo ka dhexeeyey waxaanu samaynay waxa jiray eedo aan u jeedinay maayarka oo ay ka mid ahaayeen musuqmaasuq sharci jabin iyo awood maroorsi kuwaas iyagu waa sidoodii way socdaan hay'adaha ku shaqada lana way marayaan golaha deegaanku wuxuu kala leeyahay hierarchy u kala sarreeya waxa goluhu wuxuu leeyahay fulintu waa maayar ku-xigeenka iyo xogeeyaha ayaa la isku dhaaf fulin annaga fulinta waxaa nagaga jira maayar ku-xigeenkuna dee waa shaqaynayo waa arkaysayno shaqadiisii waa watay waxa weeyaan goluhuna kalfadhiyu leeyahay oo kalfadhiyo ku shaqeeya kalfadhigii u dambeeyey waad ogeedinoo dee maayarku isaga ka cararay markuu 4 cisho socday kalfadhiga soo socdana diyaar baanu nahay waana December buu dhacayaa kulley dee hawl baanu ku jirnaa shaqaanu ku jirnaa shaqada aanu wadno ee goluhu imika uu wado dee waxaa ka mid ah inaanu daba galno hantida iminkaan ku daba jirnaa dee waa shaqaanu hayno oo waa shaqadiina loo soo doortay inaanu hantida ummadda ilaalino inaanu mashaariicda daba galno iminka shalay toole mashaariic baa la dhagax dhigay December dee bil baa ka hadhay waxaa la doonayaa mashaariicda ku jirtay miisaaniyadu dhammaantood inay December ku qabsoomaan looma baahna dee dhagax dhig waxaa loo baahan yahay dhamaystirmaan mashaariicda maxaa ka mid ah waxaa ka mid ah waddada Wajaale oo 1 kiiloomitir iyo 200 mitir la dhisay waxaa la doonayaa inay 2 kiiloomitir December dhamaystirmaan waxaa ka mid ah waddada Sharif Cali ee maayarku dhagax dhigay waa inay December dhamaystiranto waxaa ka mid ah waddada Kalabayd oo iyada dayactir lagu sameynayo November bayna maran dhammaadkeedii ilaa imka dayactir laguma sameyn waxaa loo baahan yahay dhamaystiranto garoomada shalay toole dhagax dhigayay oo adogtiin qaarkood in la iska dhagax dhigay meel aan garoon laga dhigi karinba iskuulka sharxuun warsanay deyrka iyo galaaska inta u dhaxaysa la dhagax dhigay waana halkii ardaydu ay ka galaaska ka galisay ma hadday meel garoon noqon karayso yani waxay cadeen kugu tahay inay waxani dee igu soo waray tahay shaqada goluhuna ma ha dhagax dhigde malaa dadku waxay u fahmeen shaqada golaha in maayarkoo la daba cararo inay shaqada goluhu tahay shaqada goluhu ma hadday maayarkoo la daba cararo shaqada goluhu waa in la xisaabtamo mashaariicda dadka loo hayaa inay fulaan waxa weeyaan goluhu wuxuu leeyahay guddiyuu leeyahay sidoo kale mar ay warbaahintu wax ka weydiisay sababta ay ula shaqayn waayeen maayarka oo ay shaqadoodii u gudan waayeen ayaa waxa uu sheegay in ay shaqadoodii hayaan isla markaasina shaqadoodu ay tahay kalfadhiyada iyo in ay kaantarooraan hantida loo doortay waa sida uu hadalka u dhigay golays haystaa ma jiraan shaqo taageerina ma jirto
waxaan anagu aanu haynaa iminkaan idiin sheegayay waa shaqadii golaha inaanu xisaabtano oo hantida ummadda maqanay aanu raadino halkay martay iminka maayirka waxa looga baahayo keliya inuu dadka u sheego lacagtoodii halkay martay 7 bilyan aanu ku aadanayno ayaa loo baahan yahay dadka inuu sheego halkay martay isma haysano ma hadde anagu waxaanu raadinaynaa shaqadii aanu haynay oo inaanu daba galno maamulka oo wixii ka qalocdaanu saxno ayay ka mid tahay oo waxaanu leenahay hantidan halkay ku maqan tahay sheeg hantida markuu halkay ku maqan tahay markuu sheego wada shaqayntu way sii soconaysaa iminka cid idinla soo xidhiidhay xagga hanti dhowrka ma jirtaa ama oo hanti dhowrka qaranka idinkala soo xidhiidhay may walaal ma jirto hanti dhowrka cid nagala soo xidhiidhay ma jirto laakiin waxaan rajaynayaa in guddida dabagalka hantida qaranka aanu cadeymaha u gudbinay inay iyadu hantoorka iyada wada shaqayn bay leeyihiin inay iyadu cadeymaha u gudbiso waa cabdisalaan maxamed bade bulsha t v gabiley hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana waa kuu bilaash haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 eber 8 afargees ama xidig 2 eber 2 afargees isticmaal shabakadda ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland هاي العظمة sidan kamaad ogolaateen kaalinta shidaalka ee aad maxmiilka u tahay ha ka ogolaan shirkadaha kale ee adeegyada bixiya u soo wareeg Somtel